السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بشان بركيسان رمضان waxa ay si toos ah u saamaysaa shan tiir oo caafimaadkeena muhiim u ah oo jidhkeena ka tirsan ayay bishan barakaysan qofku marka uu soomo ee uu markaa sooman yahay ayay saameynaysaa. taas ayaa waxay sababtaa in ay bishan Ramadaan tahay bil qofku caafimaadkiisa uu si lama laabmayo ama uu si xoogaysanayo ama ay u fiican tahay qofku in uu soomo gaar ahaan bishan barakaysan Ramadaan xataa marka ay dhamaato soonka sunnayaasha inaad soonto oo caafimaadka jidhkaaga shantan imka markaad ogaato ina soonka aad meel ku qorato inuu caafimaadka jidhkaaga u baahan yahay. laakiin waxan oo khayraada iyo waxaan oo qofku ka baqashaa oo soonka aad ka baqayso iyo waxyaabahan ay iska dhaadhicinaysaan ee dadku ay aaminsan yihiin in nafaqadooda ay hoos u dhacayso, inay tamar darnaanayaan, inay duubnaanayaan, inay indhuhu godanayaan, in gaastari ku dhacayo, inay balaayo iyo baas ay qaadayaan. dad badan ayaa su'aalaha ku soo weydiinaya. waxaasi waa arrin runtii baseless waana waxba kama jiraan. qofka bishan barakaysan ee Ramadaan waxa ay u samaysaa shantan aynu eegno markaa. waxa jira systemka jidhkeena gaar ahaan qulqulka dhiigga ayay bisha barakaysan ee Ramadaan ay u wanaagsantay oo waxa qofka soo gala dhiiggiisu marka uu hagad galo uu kala miirma. cuntooyinkaaga markasta aad yaraysato dhiig wuxuu isku samaynayaa inuu isnadiifiyo. cuntada qaadanaysa ayaa inta badan waxay qofka ku abuurtaa in toxic dhiiggeena uu raaco ama sun ay raacdo, markaa way ka yaraanaysaa. cuntooyinkii maadaama aad yaraysay suntii raacaysay jidhka ama dhiigga raacaysay way yaraanaysaa. markaa wadna xanuunkii, beer xanuunkii, kaliya xanuunkii wuu ka raysanayaa. intaba waad ka raysanaysaa bisha barakaysan ee Ramadaan. waxa kale oo iyaguna shaqadooda aad u cartamayaan ama ay aad marka active u noqonayaan ama stimulation badan lagu sameeyaa enzymeska jidhkeena iyo hormoonada jidhkeena. waxa kale oo runtii isaguna shaqada dib u cartama ama shaqadiisu ay aad u fiicnaataa digestive systemka waxa la yiraahdo ama habdhiska dheefshiidkeena ayaa nasta oo hakada ila markan kale aan Ramadaan ahayn waxbaad ka buuxinaysaa, waxaad gelinaysaa markasta waxbaynu cunaynaa. sidoo kale waxa iyaduna hakad gasha kaadi haysta oo qofku markasta oo biyuhu ay jidhkaagii ay ku yaraadaan systemkii jidhka ee kaadi haystaadii ay samaynaysay inay kala baxdo way soo ururayaan oo murqaha kaadida ayaa iyaguna adkaanaya oo soo giijisamaya. dadka qaar ba waxa ku dhacay inay murqaha kaadidu ay barqaan waxa mararka qaar aanu kaadida ceshan karin. laakiin marka hakadkaasi uu galo ee qofkii uu iska yareeyo markaas uu soonkii ku jiro way u fiicnaanaysaa. caafimaadka shanta qodob aynu tilmaamnay in systemka jidhkeena, hormoonada, enzymeada iyo xanuunada markaa ku dhaca kaliyaha iyo beerka iyo wadnaha intuba ay ka yaraanayaan ayaa waxay yihiin kuwa bayska waa bishan barakaysan ee Ramadaan looga faa'iideysto inta aynu soomanahay. qof kastana waynu ku waaninaynaa waa ku wacyigelinaynaa inuu bishan barakaysan aanu ka warwarinay uu dhamaystirto marka ay baxdana xilliga maalmaha laynoo ishaaray ee Khamiista iyo Isniinta inuu soomo. sidoo kale waxay ka yareynaysaa hamada iyo shahwada haddaad tahay qof dhalinyaro ah oo aan wali guursan. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.